بسم الله الرحمن الرحيم toddobaadkii dhoweyd waxaa la xusay maalinta cagaarshowga adduunka oo loo yaqaano World Hepatitis Day. Run ahaantii cudurka loo yaqaano cagaarshowgu dadkeenu inta badan waa uu yaqaanaa waxaana uu yahay cudur ku dhaca xubinta loo yaqaano beerka oo ah xubinta ugu weyn jirkeena muhiimad aad u badan leh. Haddaba waxaa lagama maarmaan ah in aynu cudurrada ku dhaca ay ugu caansan yihiin kuwa loo yaqaano viral hepatitis. Viral hepatitis ama cagaarshowga oo keeno virusku kuwa dalkeena u badan waxaa ka mid ah hepatitis B-ga, waxaa kaleeto ku soo xiga hepatitis C-ga. Labadaas nooc oo hepatitis waxaa loo kaleeto loo yaqaano chronic hepatitis oo ah kuwa waqti badan qofka la noolaada jirkiisana ku jira ayna dhici karto in laga qaado haddii ay dhacdo inay qof ay magaranaysaa ay xaas isu noqdaan amaba haddii qof uu dhiig ku shubo iyo wax la mid ah amaba haddii yacni siringa lagu diro qofkan oo qofkan kaleeto lagu diro. Marka hepatitisku waa cudur runtii khatartiisu ay aad u badan tahay marka dambena keeni kara qofku in beerkiisu uu talaf noqdo oo magaranaysaa haddii especially uu yahay midka loo yaqaano chronic active hepatitis. Marka maxayna la gudboon haddaba si aynu u yarayno baaxadda cudurku ama waxa loo yaqaano disease burdenka hepatitka. Waxayna la gudboon inaynu naqaano siyaabaha cudurka loo qaado iyo siyaabaha la isaga ilaaliyo ama looga hortago. Especially hadda markaan ka soo qaato midka loo yaqaano hepatitis B waxa uu leeyahay tallaal. Tallaalkiisuna waxa weeye waa la helaa waxaana lagama maarmaana dadku haddii aysan hore isu tallaalin inay istallaalaan. Dabcan dadku waa uu kala duwan yahay. Qaar waxaa jira u nugul hepatitis B-ga. Kuwa waxaa ka mid ah shaqaalaha caafimaadka ayaa ka mid ah iyo dadka garanaysaa ka shaqeeya shaybaarrada ama dhakhaatiirta qalliinka iyo dhakhaatiirta guud ahaanba. Marka tallaalka in la tallaalo qofka cagaarshowgana laga tallaalo noociisa B-du waxa uu ka badbaadin karaa qofku inuu cudurkii qaado. Waxaa kaleeto uu aad muhiim ugu yahay qofka in beerkiisu markaas ay ku yimaadaan waxaa loo yaqaano cudurkii hepatitka. Waxaan rajaynayaa inaad dhakhaatiirtiina kala tashan doontaan. Waxaana mar walba idinkula dardaarmayaa la tashiga dhakhtarka ama in qofku uu isbaaro sanadkii mar ama 2 goor waxa ay muhiim u tahay badbaado qabka iyo ka hortagga cudurro badan oo keeni kara khatar ah in qofku ay dhibaato soo gaarto amaba uu dhintoba. Waxaan insha Allah idin rajaynayaa caafimaad wanaagsan waana mahadsantihiin.